بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudanow janaalkani mar walba waxa uu ku dadaalaa siduu igu soo bandhigi lahaa fikirro iyo aragtiyo cusub kuwaasoo saameyn weyn ku leh nolosha bini'aadanka bal haddaba caawa waxaan focuska saari doonaa oo aan ku falanqayn doonaa innagoo sababeynayna qodob aad u muhiim ah kaasoo nolosha basharka ama bini'aadanka caalamka ku nool fikir ahaan ay aad uga gedisan yihiin sida ay aaminsan yihiin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed qodobkan oo ah doorasho macnaha ereygu waa doorasho tusaale ahaan haddii lagu dhahdo maxaad dooranaysaa maskaxdaada markaaba waxa ku soo dhacaya baahiyaha aad qabto kuwaasoo aad u raadinayso xal haddaba sideedaba doorashadu macnaheedu waxa weeye qofku inuu doorto ama haddii uu dooranayo mas-uulkan maxaad ku dooran kartaa tusaale ahaan dalkaaga waxa ka dhacaysa doorashadaas oo ah golaha sharci dejinta sharcigu waa ka kala hagaa ummadda hanaanka dowladnimada golaha sharci dejintu caalamka golaha baarlamaanka ama se loo yaqaan golaha sharci dejinta waa ka matala bulshada iyo baahiyahooda waana ka soo saara sharciyada hogaaminaya ka shaqaysiinaya madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda haddaba waxaan tusaale ahaan ugu soo qaadanay waa halbowlaha dowladnimo taasoo ah tiir laga maarmaan ah waayo waa awoodda qura ee la xisaabtami karta mas-uul kasta oo bulshada matalaya sideedaba dadka Soomaaliyeed madaxda ama mas-uuliyiinta waxay ka aaminsan yihiin fikir qaldan kaasoo ah mas-uulku ma aha qof kaasoo iskaga dhaqma waxa uu doono bulshaduna ma taqaano sida loola xisaabtamo mas-uulka ay diratay waayo mas-uulku sidiisaba waa shaqaale u shaqeeya shacabka awoodda koobaad ayaa waxay tahay shacabka laakiinse goorma ayay shacabku gaadhayaan awooddaas waa tan koobaade waa markay iyagu fahansan yihiin waxay dooranayaan waxay doonayaan waxay doorbidayaan waxay kula xisaabtamayaan mas-uuliyiinta ay u dirteen shaqooyinka aasaasiga ah kuwaasoo taabanaya noloshooda macnaha dowladnimaduna waa kalsooni hadaf iyo ujeedo ay wada leedahay ummad ku dhaqan gey taasoo vision iyo aragti dheer ka leh nolosha iyo mustaqbalka dhulkooda ay ku nool yihiin una fikira sida ay u horumarin lahaayeen aqoontooda dhaqaalahooda awooddooda ciidan tooda caafimaad waxbarasho iyo dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadanka haddaba shaqooyinku way kala horhoreeyaan qofka bini'aadankii marxaladda koobaad waxa uu u baahan yahay 4 shay oo muhiim ah kuwaasoo ah sida ay nolosha bini'aadanku ku soo bilaabantay marba marxalad ay soo marisay mar dadku ma ay lahayn wax maamul ah markii xigtay waxay ka soo gudbeen noloshii ugaadhsiga iyo qaraabsiga waxaana samaysteen hoy iyo meelo ay ku nagi yihiin halkaasoo ay ka duulaan si ay u soo raadsadaan nolol maalmeedkooda ay ku noolaan lahaayeen iyaga iyo ubadkoodu way ka soo gudbeen oo waxaa la sameeyey inay noqdaan beeraley iyo xoolo dhaqato waa la soo dhaafay magaalooyin ayaa la sameeyey dadkii waa wada degeen dhammaan dadkii ku soo ururay ee jagleelay deegaanku waxay samaysteen maamul hogaamiye kaasoo dhaqan ahaan weli kasii muuqata bulshada Soomaalida haddaba mawduuceena muhiimadiisu waxa weeye doorasho macnaheedu waxa weeye inaad doorato qofkii mudnaa aqoonteeda lahaa baahida aad dareemaysana kaa saari lahaa kuguna hogaamin lahaa waxa aad hiigsanayso ee hamigaagu yahay taa beddelkeeda dhibaatada maanta haysata bulshada Soomaalidu bulsho ahaan Soomaalidu waa dad aad u wanaagsan rajo weyn kale nolosha isbeddel fara badan ka sameeyay iska daa kuwii deganaa dhulkooda iyo kuwii qaxoontiga ahaa ee u hayaamay markii uu burburkii dhacay dowladaha shisheeye ayaa wax bartay dalalka ay joogaanna ka noqday hogaamiyayaal balse marka la eego dadka ku nool gudaha dalku mushkiladda haysataa waxa weeye rabitaankooda iyo baahidooda kuma saleeyaan waqtiga ay awoodda leeyihiin ee ay wax dooranayaan laga yaabaaba mas-uul sameeyey khiyaamo qaran kaasoo wixii lagu aaminay iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay ku tagrifalay inay difaacaan qaar ka mid ah bulshadii uu ku ciyaaray shaqadoodu waayo mas-uulku waa shaqaale ummadeed sideedaba dowladda wanaagsan waxay ka dhalataa dadka wanaagsan haddaba muwaadin ma tahay qof raba inuu gaadho nolol iyo mustaqbal ka wanaagsan towhada ku jiro sidee ayaad u qiimeyn kartaa mas-uulka jooga iyo ka soo socda ka joogay waxaad ku qiimeynaysaa intii uu joogay muxuu kuu soo kordhiyey adiga nolol ahaan macnuhu ma aha dowladda imise mas-uul ayaanu ku leenahay ee ujeedadu waxa weeye mas-uuliyiinta aanu leenahay annaga iyo bulshadaba maxay u qabteen sidaan filayo in xaadirka Soomaalidu guud ahaan 70% waxay u badan tahay dhalinyar kuwaasoo leh aqoon maadi iyo mid diiniya haddaba marka aad dooranayso tusaale ahaan mas-uul golaha sharci dejinta ah haddii uu ku yidhaahdo isagoo codkaaga raba anigu waxaan ka soo shaqayn jiray turjubaan baan ahaa amabase waxaan ahaa ganacsade qofkaasi ma mudan yahay inaad u doorato gole sharci dejineed sharci dejin waa qof aqoon u leh sharciga guud ahaan Soomaalida inteeda kale hadda doorasho hal cod iyo hal qofi kuma badna balse tusaale ahaan waxaan soo qaadan doonaa Jamhuuriyadda Somaliland oo qabsatay doorashooyin fara badan balse marka aad eegto doorashooyinkaasi waxaad ka dheehan kartaa inaysan bulshadu fahansanayn waxa ay dooranayaan amabase ay ku qiimeynayaan
lahaayeen mas-uulka ay dooranayaan si berri ay ugula xisaabtamaan mas-uulkii ay doorteen shaqadii ay u doorteen miyuu qabtay mise muu qaban. tan ayaa u baahan inaad fahanto. mas-uulka reerkiina ah amase aad isku haybta tihiin hadduusan shaqada loo doonayo aqoonba u lahayn, oday dhaqameedka soo xulaya iyo beeshaasba miyaanay sharaf darro ku ahayn inay ummadda inteeda kale hor keenaan qof aan aqoon waxa uu qabanayo. dabcan anigu fikirkayga gaarka waxaan aaminsanahay qofkaasi inuu dhaawacayo sharafta qaranka iyo ta cidda uu ka soo jeedo hayb ahaan. waayo maanta walaalkaaga kula dhashay ummadda hadduu wax wanaagsan u soo kordhiyo sharafta iyo karaamada uu sameeyey, adiguna waad ku farxaysaa, ehelkuna way ku farxayaan, bulshada inteeda kalena way ku farxaysaa. laakiin mushkiladda jirta ayaa waxay tahay in bulshadu ay u fahantay tartanka doorashada taas oo loo xulanayo shaqada qaranka dad gaadhsiiye halka la rabo, ummadana horumariya, in loo fahmay inay tartamayaan beelo iyo reero, taasoo canaanteeda ay leeyihiin dadka iskale ama hogaamiyaasha u ah asxaabta qaranka. waayo kuwaas ayaa mas-uuliyadda koowaad leh inay soo xulaan dad aqoon ahaan, maskax ahaan iyo daacadnimo ahaanba u dhisan, kuwaasoo sharaf u soo jiida xusbiga ay ka tirsan yihiin, bulshadana u qabta waxa ay ka doonayaan. haddaba bal waxaan tusaale u soo qaadan doonaa adiga shakhsi ahaan. haddii aad leedahay meherad ganacsi oo uu ka bannaan yahay boos xisaabineed oo aad u baahan tahay qof xisaabiya ah, meheradaada ma u dooran lahayd qof xamaali ah oo aad isku hayb tihiin, qaraabay ehelna aad tihiin, kaasoo ka shaqeeya meheradaada? dabcan jawaabtu waa maya. waxaad dooran lahayd qof xisaabta ku wanaagsan oo ilaaliya dakhliga meheradaada, imkankiisa iyo outcome-ka baxaya labadaba. qofkaasoo ah qof aad ku tuhunsan tahay inuu yahay daacad, shaqadiisana aad kula xisaabtamayso waqti walba. nasiib darro, shaqada qaranka ee ummadda loo qabanayo marka ay taagan tahay, maxaa kuu diiday inaad saas si lamid ah aad dalka shaqadiisa ay kaa qabato lexjeelada kaa haysa meheradda gaarka aad u leedahay? sababtoo ah meheradda aad leedahay horumarkeedu waxa uu ku xidhan yahay horumarka dalka aad ku nooshahay, dhaqaale ahaan, caafimaad ahaan, aqoon ahaan iyo cilmi ahaanba. bulshadu waata u xisaabtantaa sidaas. bal waxaad eegtaa caalamka doorashooyinku markay ka dhacayaan, bulshooyinkoodu sida ay u qiimeynayaan musharaxa ay leeyihiin. ma jiro dal musharaxiisa ay soo doortaan koox kuwaasoo ka ololeeya hal xisbi gudihiisa, waayo iyagu waxay kuu soo doorayaan qofkii ay iyagu wateen. balse taa waxaa ka muhiimsan in marka hore qofka tartamaya uu bulshada horteeda u soo bandhigo aqoontiisa iyo waxa uu qabanayo. haddii ay bulshadu ku qanacdana uu noqdo qofkaasi musharaxa u taagan jagada xisbiga ah. taa beddelkeeda bulshada Soomaalidu waxay ku mashquulaan, waayo ninka siyaasigii iskuma mashquuliyo inuu ummadda u soo bandhigo aqoontiisa, taa beddelkeeda wuxuu isku mashquuliyaa inuu gacanta ku dhigo oday beeleedyo, salaadiin iyo cuqaal, kuwaasoo laga yaabo inay qofkan ku taageeraan interest gaar ah oo ay iyagu leeyihiin, kadibna bulshada ay ka iibiyaan qofkan uu sidaas ku soo baxo dabeed hadhowna laga calacalo mas-uuliyad darrada uu sameeyey. taas isagu kuma qaldana, sababtoo ah isagu waxa uu ka rur sheegayaa rabitaankiisa iyo hankiisa siyaasadeed. laakiin cidda awoodda u leh inay bulshada hor keento qofkan waa qofka codaynaya. muwaadin dooro waxa aad doonayso ee ha dooran wax ay doonayaan cid dana gaara leh. muwaadinku waa ka fikira horumarka dalkiisa, waayo cadaalad waxa ah waxqabadka ka soo fula dowladda kaas oo gaadha dhammaan shacab ay mutasho dowladdaasi. caalamkuna sidaas ayuu ku horumaray kuna gaadhay heerka uu maanta taagan yahay. barnaamijkanan oo insha allahu noqon doona taxane si aan bulshada u fahansiino waxa ay doonayaan si ay u dooran lahayn. ha noqon qof maalinta uu haysto codkiisa loo tumo durbaan kadibna iska jibooda, marka laga hantiyo codkana 5 sano ama 15 sano ku noolaada calaacal iyo maxaa waxaan loo sameyn waayey. ku qanac, kani waa adiga dookhaaga iyo doorashadii aad samaysay, natiijadii ka soo baxday. fahan qaladka cidda samaysay inay adiga tahay. dhammaan bulshadu caalamku waxa ay ku xisaabtamaan ka beeraleydii waxa uu ku xisaabtamaa siyaasiga wax ka qabanaya beeraha, ka ganacsadihii waxa uu ku xisaabtamaa mas-uulka horumarinaya ganacsiga, waxbarashada ardayga ku jira waxa uu ku xisaabtamaa mas-uulka horumarinaya aqoonta. waxa la doortaa ma aha qof, waxa la doortaa waa dan ay leedahay bulshadu iyo ciddii uu hogaamin lahayd, gaarsiin lahayd halka la rabo. daawadayaal, intaas ayaan ku saafari doonaa barnaamijkan. waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.